dowladda Talyaaniga oo rumaysan gaarigii ku qarxay isgoyska Zobe in laga keenay dalkaasi ayaa dad ay ka mid yihiin Soomaali u xirtay gaarigaasi. wargeys lagu magacaabo France Republic ee ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa daabacay warbixin uu kaga faaloonaya qaraxii ka dhacay Sabtidii aan ka soo gudubnay isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. wargeyska ayaa sheegay gaarigii halkaas ku qarxay in laga soo dhoofay dalkaas Talyaaniga. garsooriyaal iyo baariyaal arrintaas dabagal ka wada ayaa waxa ay ku sugan yihiin yiri gobolka Tosli yiraahdo oo ka tirsan dalkaas Talyaaniga. dabagalka oo muddo socday ayaa wuxuu sheegay wargeysku in qaraxyadii iyo gawaarida ciidanka laga soo dhoofiyo magaalooyinka ku yaala dalkaas Talyaaniga. maalmo ka hor waxaa la xiray dhowr qof oo ay ka mid yihiin 4 Soomaali ah kuwa oo degan gobolkaas ayuu wargeyskan. waxa uu sheegay in 4 Soomaali ay yihiin halka uu ku jiro nin u dhashay dalkaas Talyaaniga. shaqsiga Talyaaniga ah ayaa ahaa nin ganacsada ah oo shirkad weyn ku lahaa gobolkaasi. wuxuuna sheegay in gaarigii ku qarxay isgoyska Zobe magaalada Muqdisho loo malaynayo in laga soo dhoofiyay. baarista socota waxaa ku lug yeeshay 16 qof, waxaa ku jira 2 Soomaali ah kuwa oo bixiyay qarashkii inta badan lagu soo iibiyay ama lagu soo dhoofiyay gaarigaasi. waxaa loo malaynayaa in gaarigaas iyo gawaari kale ay dadkaas ay ka dambeeyeen in qarashaad badan ay ku bixiyaan sidii Soomaali loo keen lahaa. dabagalkan waxaa ka qayb qaadanaya xeerar ku-xigeenka magaalada Florence la yiraahdo. horey uma dhicin in qalab military iyo waliba gawaari furfuran Soomaali loo soo dhoofiyo, laakiin sanadkii 2000